Assalaamu calaykum. Dadku badanaa markay la kulmaan duruufo adag, laba dooq mid un bay sameeyaan, inay isdhiibaan oo ay rajo dhigaan, ama inay waajahaan oo ay la dagaalamaan duruufahaasi adag. Badanaa dooqani waa waxa go'aamiya sida ay noqonayso nolosha qofkaasi. Inaad si xooggan u aaminsanaato riyooyinkaagu waa waxa kugu taageeri kara halgankaaga aad kaga soo horjeedo rajo la'aanta. Yeelashada damac xooggan iyo go'aan aad guul ku gaadhaa waa waxa kaliya ee kuu rumayn kara hadaf aad leedahay isla markaana ku siin kara rajo xooggan oo aad kaga gudbi karto dhammaan caqabadaha aad waajahayso. Farxadda iyo badhaadhuhu waxa suurtagal ah inay u muuqdo wax adag tahay in la helo, balse waxaan shaki ku jira inay sugayaan inay kugu abaalmariyaan dhammaadka waddo ay ka sokeeyaan shaqo adag iyo halgan badani. Waa haddii aad go'aansato inaad raacdo waddada. Qofka bini'aadamka ahi wuxuu guuldaraystaa oo kaliya markuu aamino inaanu gaari karin riyooyinkiisa. Inaad fuusho salaan dheeri dhab ahaan waa wax khatarteeda leh, balse waa inaad fuusho haddii aad rabto inaad gaadho ujeedkaaga. Sababtoo ah haddii aanad fuuli karin, fursad kale haysataa. Fursadda kale ee aad haysataa waa inaad hoos taagnaato salaanka oo aad ka cabato sida noloshu u adag tahay. Nick Vujicic wuxuu 1982 ku dhashay Australia. Waxaanu ku dhashay xanuun badanaa bini'aadanka aan ku dhicin, balse isaga ku dhacay oo ah inuu lugeeyo gacmaba aanu lahayn markii uu soo dhashay. Markii ugu horeysay ee uu dhashay, hooyadii waxay diiday inay aragto ama ay qabato, iyadoo kalkaalisadii ay u haysay ilmaha muddo. Markii dambe waxay ku qanceen markii uu yaraa curyaannimadiisii. Vujicic waxay ku sababtay inuu waajaho halgan muuqaaleed iyo mid dareen ahba. Sharciyada dalkiisa u yaala umay suurtagelin inuu ku biiro iskuul fiican. Wax yar kadib markii loo ogolaaday inuu ku biiro iskuulkiina, wuxuu cadaadis iyo xoog sheegasho kala kulmay ardaydii ay dugsiga wada baranayeen, taasi oo ku sababtay inay murugo aad u badan haleesho markii uu 8 jir ahaa. Markii uu 10 jir noqday, wuxuu isku dayay inuu isdilo markii uu adkaysan waayay nolosha ku sugan yahay. Vujicic hamigiisu wuxuu ahaa inuu ku noolaado nolol guul leh, isla markaana uu yeesho awood uu kaga gudbo dhammaan darooyinkan hadheeyay si uu guul u gaadho. Inkastoo aanu lahayn wax adimo ah, haddana kama fikiri jirin waxaanu hay, balse sida ka soo horjeeda mid ka mid ah cagihiisa aadka u dhumucda yar ayaa ku hogaamisay nolol barwaaqo ah. Wuxuu bartay sida loo isticmaalo kombiyuutarka, waxaanu halkii minid boqori karaa 40 xaraf. Sidoo kale wuxuu awood u yeeshay inuu tuuro kubadda tenniska, inuu qabsado galaaska biyo ah, inuu shanleeyo timihiisa, inuu caddeeyo ilkihiisa, isla markaana uu garhka xiirto. Wuxuu ciyaari karaa noocyo badan oo ka mid ah isboortiga sida golofka, dabaasha iyo waxa loo yaqaan skydiving. Waxa uu 2 bachelor degree ah ka diyaariyay xisaabaadka iyo dhaqaalaha. Vujicic wuxuu ku guuleystay inuu noqdo qof dalka dhiirigeliya, waxaanu u socdaalay dhammaan adduunka oo dhan, isagoo la hadlay 3 milyan oo qof oo ku nool in ka badan 44 waddan, isagoo barayay dadka sida loo rumeeyo riyooyinkooda.